hal wax baa nimanka laga rabaa intayna isku qabsan inaan isduucayn qoladan xamar joogta talaaniga goysa jiray ma qirsan yihiin inaynu ahayn laba dowladood lixdankii midoobay tan maanta sheegi ka hadlamayo kartay waxa weeye wararta laba dowladood isku mid ma ahayn ma gobolada ka mid aanu ahayn miyaana qabsateen xoog baan ugu qabsateen ereyga madaxda xamar joogta kuwa hore kuwa kan nin toos u aqbalaya ma jira Cabdullaahi mar haddaan taa hore ee 4 sano ka hor ee rasuul aan laga heshiinayn sidee baa looga wada hadli karaa wax ka dambeeyay waxa weeye laba dowladood oo ahayn waynu sunnay gureen wada dhisan uu dumay see loo dhisay laakiin haddaad tiraahdo waxaa badan lahayna waan ku haystay baldhown hawrida iyaga laga rabaa taas ilaa 5 goor bay na dhex galeen jimcada qurunka xaysan ninka ka wakiilka iyo igad qaar Afrika ka socday annaga afar qodob baan ugu xidhay oo iyagana ku xidhay afarta qodob waxay ahaayeen kow maxaa isku haysaa waxaan isku haynaa xadka Ingiriiska iyo xadka Talyaaniga iyagu way diintaa xad reer bay sameeyeen xad reer oo qabaliyana ku suudana oo halku ku yaala labiyada su'aal adag ma aha haddii Afrika oo dhan qolqolo loo kala gooyo wax la soo celiyo farmaajo xamarka aan maayo madaxweynaha haddii Soomaaliya qolqolo loo kala beeraha heeray xadkooda war qarso iska cad marda taas oo toodii xadka horumay noo yaala waa qodob yaala oo nin walba dabar ku noqday shan waxaan ilaahdeen joojiye xabad joojin ogolaada waa ogolaada waxay ilaahdeen hal siiday maxaabiista diyaar baan u ahay caawdaan joogna diyaar baan u ahay hadii laga helay sida ciidamada loo kala durkiyo hal laga wada tashay waa iyagu waxay leeyihiin ciidamada dib loo celiyo ana waxa leeyahay xadkii 70 kilomitir bay iga hadhay saan uga dhaqo dalkayga dhexdiisa arrintaa waa lagu jiraa waxa soo dhex gashay meesha qolada la soo jeedaa telefoon ma nagu hadleen waa ogolaaday isna wuxuu waa ogolahay waraaq bay soo direen waa 8 bilood ka hor mid waraqada noo saxay kalsoonida in arrintaa idin gogolo waa saxay waa diiday isuuran baa soo gashay safiirku arrimaha dibadda soo hadlay intii la guuri warqadu waa saxay afkii uu ka aqbalay waa saxay waay ilaa imkay taagantii waxay midkii soo Afrikaanka ahaa wuxuu ka bilaabay halada dhexdhexaadiye xagee baa doonaysa isagu mar walba iyagu waxay sheegtaan Ankara iyo Dooxa wuxuu waxaan geynaa Johannesburg waa ogol isagii baa lagu weeriyay hadda cishadooda waxay boor waran ka sheegay Turkiga war kaliya ku aqbalay meeyne caalamku kala soo dhex galo wuu aqbalay warqad soo celiyay hadda Ingiriiska Mareykanka EU Afrika baashan Yurub ka soo tagtay Sweden inta wuxuu ka codsaday in la isugu yimaado bisha 19keeda meesha la Ghana Accra si loo sameeyo guddi caalami ah oo Soomaaliya iyo Soomaaliya ka dhex gashay waxa hubaala in xamar iyo inta la joogtaa wax ka dagaalamaya walaalahay waxay mahayn haddii Soomaaliya nahay warwar aan garano oo inaan isku dhiman xabad inaga daa aan wada hadal waxay naga dhaxeeyay waxaanu haynaa qora xamar joogto leh wada hadli mayno waayo naga midbaatiyay nama diidi kartaa iyaga intaas ka goob bal halka xal laga helayo odayaalo aanu ka fikirno hadda noo garabayno dadka caanka u garabayay gaarana markay meel gaarsiiyaba way kaga baxaan marka meel ay gaarsiiyaan ajnabiga way kaga baxaan taa waxaan ugu dheeraaday waa arrin culus oo dalka culays waa haysta oo warwar haysta oo inaynu fahamno mowqifkan ku socona ah ayaa iyada saayid ku balbalaariyay waxa idinku